الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. waxaan saaka soo booqanay isbitaalka Banaadir oo xalay la wareejinayay video naxdin leh hooyo Soomaaliyeed oo isbitaalka hortiisa ku foolatay dhacdadaas anagoo ka duulayna ayaan saaka soo booqanay isbitaalka. waxaan kulan la qaadanay maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha oo aan ka wareysanay sida ay wax u dhaceen. waxaan daawanay sidoo kale camera CCTV-ga ayaan daawanay. waxaan aad uga xunnahay ummadda Soomaaliyeedna aan ka raali gelinaynaa in kiis noocaas ah ay ka dhacaan isbitaalka Banaadir hortiisa oo ah isbitaalka ugu weyn ee hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ee dawladda ay ku faanto. isbitaal Banaadir oo ah isbitaal kumanaan hooyo ah sanad walba ay ku dhalaan laguna daryeelo, boqolaal hooyooyin ahna bil walba ay ku dhalaan laguna daryeelo. isbitaalka Banaadir oo ay maalgelin xoogan gelisay dawladda Soomaaliya in ka badan 250 shaqaale ka mid ahna ay mushaar siiso dawladda Soomaaliya. in kale oo intaas tiro kalena gunooyin ka helaan hay'adaha dawladda hay'adaha la shaqeeya dawladda iyo wasaaradda la shaqeeya ay gunooyin ka helaan maalgelin xooganna lagu sameeyo sanad walba. in hortiisa kiis noocaas ah uu ka dhaco aad baan ugu xunnahay, ummadda Soomaaliyeedna waa ka raali gelinaynaa. kadib markaan wareysanay shaqaalaha iyo maamulka ana daawanay camera CCTV-ga waxaa noo soo baxday ayna noo cadeeyeen in kiiska oo ahaa Brimajor canug oo aan bilaha dhamaysanin in la xawilay la refer gareeyay isbitaalka loo refer gareeyay. kadib markii la qaabilay la baaray in la refer gareeyay isbitaalka loo refer gareeyay. waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in baaritaan dheeri ah aan samayn doono annagoo kaashanayno xeer ilaalinta CID-da iyo hay'adaha kale ay khusayso si dhab ahna aan ugu tabatagi doono wax kasta oo qaladaad ah ama dayacaad ah ee laga yaabo inay halkaas ku jiraan aan ka dabatagi doono, tallaabana la qaadi doono ayaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa. waa la xawilaa bukaanada haddii isbitaalka cases qaar waxyaabaha qaar uusan xallin karin ay jiraan. waxay noo sheegeen in ventilators oo ciladaysan darteed ilmaha Brimajorka ah meel ay ku xanaaneeyaan hadda inaysan u haynin ee dhalo la geliyo inaysan u haynin, sidaa darteedna ay u refer gareeyeen ay noo sheegeen. laakiin mas-uuliyadda intaas nooga dhici mayso. in kiiskaas isbitaal hortiisa uu ka dhaco ayaa ah wax aan la aqbali karin, ayadoo isbitaalka uu leeyahay ambalaasyo, ayada oo maaragtay isbitaalka uu leeyahay dhakhaatiir iyo umulisooyin tiro badan oo dawladda mushaar ay siiso oo shaqadaas qaban karo. in kiiskaas isbitaalka hortiisa uu ka dhaco mid la aqbali karo ma aha, min aan justification iyo marmarsiyo u samaynaynana ma aha. baaritaan dheeraad ahna waa samaynaynaa annagoo la kaashanayna hay-adaha ay khusayso. insha allahu tacaala tallaabo dhab ahna waa la qaadi doonaa oo lagu saxayo wixii qaldamay. waxaan u caddaynaya ummadda Soomaaliyeed kiiska inuusan xali ahayn, kiiska uu dhacay 26 Oktoobar inuu dhacay. waxaa kaloo oo noo caddaatay waxyaabaha qaar la wareejinaya propaganda inay yihiin oo kiiska dad dhahaya lacaga la weydiiyey lacag darteeda loo soo saar dhahayana inaysan waxba ka jirin, wax lacag la weydiiyey aysan jirin ayaan sidoo kale xaqiiqsanay. waxa ay noo caddeeyeen shaqaalaha iyo maamulka camera CCTV-na aan ka aragnay in la refer gareeyay kadib markii ay ogaadeen canuga inuu yahay Brimajor oo bilo dhiman ah aysan u haynin incubator ventilatorka oo ka ciladaysan darteed inay u refer gareeyeen ay noo sheegeen. laakiin waxaan qiraynaa ummadda Soomaaliyeed ka qiraynaa in mas'uuliyadda intaas aysan nooga dhacaynin, in isbitaalka dawladda ay ku faanto hortiis in waxaas ka dhacaan wax la aqbali kara ay ahayn, in aan samayn doono guddi baaritaan annagoo la kaashanayna xeer ilaalinta iyo CID-da, in tallaabana laga qaadi doono cid walba oo ku lug yeelata qalad halkaas ka dhacay, in tallaabo laga qaadi doono. aad baa u mahadsan.